حالة شرم الصور واسمع عن بدأ أذكر عن حالة حفلة أسري جوجني تلفون كذا يجاجر كذا أنا يقدر تخفى بناي كنت أجري هذه سيدي إلا هذا كان كلها هي حال مركب بحث حالي دا ولا أخطوتي قارب حيلها والد قارب حيلها ولا يسنا magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu leeyahay mid kamid ah gabdhaha ugu caansan baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok gabadha aan ka hadlayo waa gabadha lagu magacaabo Miss Wall oo dhawaan dib ugu soo laabatay dalkeeda hooyo kadib muddo oo ay qurbaha ku maqneed gabadhaasi la weysan yahay arinteeda xoog kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaana dadka qaar ay sheegayaan in gabadhan ay afduubteen koox dhalinyaro ah oo baryahanba baadi goobayay afduubka Miss Wall loo geystay waxa xaqiijiyay qaar kamid ah saaxiibadeeda ugu dhow gaar ahaan saaxiibadii ku soo dhaweeyay Muqdisho oo gabadhan dhawaan ay soo gaartay sida muuqaalka baad ka aragtaan Miss Wall tan iyo markii ay ku soo laabatay Muqdisho waxay ku jirtay booqasho ay ku tageysay meelaha ugu bilicsan ama ugu quruxda badan ee caasimadda ku yaala haba u badnaato xeebta Liido oo gabadhan inta badan ay waqti ku qaadan jirtay wararkan Helen waxay sheegayaan in waqtigii ugu dambeeyay ee gabadhan la afduubanayay ay ka timid xeebta Liido oo waqti ay ku soo qaadatay kadibna ay saaxiibadeed kala qayb gashay xaflad ay ku ballansanaayeen halkaas ayaa la isku arkay laakiin kadib waxa dhacday in gabadhii oo dhan la waayay oo mar qura meeshii ay ka baxday ay waayeen saaxiibadii ay la socotay waatan mid kamid ah saaxiibadii la socday gabadhan gaar ahaan gabdhaha la isticmaala barta TikTok ee aadka ay isugu dhow yihiin oo ka sheekeynaysa sida ay wax u dhaceen shakiga galay iyo sida ay ku waayeen saaxiibtood Miss Wall السلام عليكم أصحاب قارئة وأهل السلام عليكم وجوكين محاربة أرين مهم إن أيدين شيء حالة شرم الصور واسمع عن بدأ أذكر عن حالة حفلة أسري جوجني تلفون كذا يجاجر كذا أنا يقدر تخفى بناي كنت أجري هذه سيدي إلا هذا كان كلها هي حال مركب بحث حالي دا ولا أخطوتي قارب حيلها والد قارب حيلها ولا يسنا أنا إلا هذا أكيد إنه ما يشوف شيء ما قال تلفون كذا مواد كمان يشجر يسوع عسى ولا يا بحاجة كل سنة قف على قف إنه سحريريو والله يقول مسكين وما قال وحلاه يستو مالي عادي ما كلا ترمك الأغاني اللي بعد Miss Wall waxay ka mid tahay gabdhaha ugu caansan ee isticmaala barta TikTok waxayna waqtigeeda ugu badnaa ku qaadatay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya halkaas oo gabadha ay ka soo gali jirtay baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok oo dad aad u fara badan ay ku kasbatay waxaana gabadhan inta badan lagu dhaleeceeyaa qaabka ay u isticmaasho barta TikTok oo taageerayaashooda inta badan ay ku dhaleelaan in gabadhan ay tahay mid aan anshax lahayn sidoo kalena aan ilaalin dhaqanka iyo diinteena suuban laakiin sidaas oo ay tahay waxa bogeeda TikTok gabadhan ku xiran in ka badan nus milyan dad ah kuwaas oo si joogto ah ula socda muuqaalada ay soo geliso barteeda TikTok haddaba arrintan ayaa waxa ay qalqal ku abuurtay guud ahaanba dhalinta isticmaasha TikTok gaar ahaan dhalinyarada reer Muqdisho ee u badan isticmaalka bartaas caanna ka ah baryahanba waxaa TikTok ka taagnaa arrimo xasaasi ah waxaana jiray in dhawaan muuqaalo laga soo bandhigay qaar ka mid ah gabdhaha ugu caansan ee TikTok isticmaala waxaana tan ay noqonaysaa dhacdo kale oo gilgisha barta TikTok aad ay ugu naxan teamka loo yaqaan ama kooxda loo yaqaan TikTokers ee TikTok ku caan baxay waxa xusid mudan in Miss Wall ay dhawaan timid Muqdisho kadibna ay soo bandhigaysay isla muuqaaladii ay Nairobi ku soo bandhigaysay oo kale waxaana waqtigaas jiray dad digniino ugu qorayay qaybta aragtida ee TikTok-eeda kuwaas oo u sheegay in halka ay joogto ay tahay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho laakiin aysan ahayn caasimadda Nairobi ee dalka Kenya sidoo kale ma jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay qoyska gabadhan inkastoo xogaha aan ku heleyno in gabadhan qoyskeeda aad ay u baadi goobayaan haddana waxay iska ilaalinayaan oo ay iska jiraan in baraha bulshada ay ka soo muuqdaan ama ay hadlaan oo ay sheegaan in gabadhooda ay la'san yihiin haba ugu darnaato hooyadeed oo gabadhan aad uga walwalsan maqnaanshaheeda waan arki doonaa wixii ku soo kordha arrintan Allah sahla ayaan leenahay Miss Wall waa gabar Soomaaliyeed sidoo kale idinkana qaybta aragtida ugu soo duceeya in gabadhaas qoyskeeda dib ay u helaan wixii xog ay ku soo kordha halka inaad kala socod doontaa halkan waa Badcas Media ku soo biir oo bagana Facebook like saaro si aad ula socotid wararka xaqiiqda iyo warbixinada arrimaha bulshada sidoo kale ilooben inaad ku biirto boggeena YouTube ee Badcas Media